saddex arrimood ka ogow gantaalka Shiinaha ka baxay xilliga la filayo in dhulka uu ku soo dhaco waxa khasaare uu geysan karo iyo gantaaladii horey dhulka ugu soo dhacay. Gantaalkii weynaa ee Shiinaha ka baxay ayaa la filayaa in dhamaadka isbuucan uu dhulka ku soo dhaco wuxuuna toddobaadkan uu keenay cabsi aad u sareysa. hay-adda cirbixiyeenada Mareykanka ayaa isku dayaya in ay ka hortagaan halista uu geysan karo gantaalkaasi balse lama oga halka uu ku wajahan yahay. gantaalada hawada ku soo burburay dhowr jeer oo hore ee dhulkana ku soo dhacay waxa ka mid ah mid sanadkii la soo dhaafay burburay. hase yeeshee dhacdadan waxa ay keentay su'aalo cusub oo ku saabsan gantaalkan ay dunida aadka u hadalhayso. haddaba goorma ayaa la filayaa in gantaalkan Shiinaha uu dhulka soo gaaro? gantaalkan dheereeya ee Shiinaha ee B5 ayaa la filayaa in dhulka uu ku soo dhaco qiyaastii 8 bishan May sida lagu sheegay warbixin uu soo saaray afhayeen u hadlay waaxda difaaca oo la yiraahdo Mike Howard kaas oo sheegay in maamulka hawada sare ee Mareykanka ay daba socdaan gantaalkaas habaabay. lama xaqiijin karo meesha uu dhulka uu kaga soo dhici doono ilaa la gaaro saacadaha ugu dambeeya sababtoo ah xawaaraha uu ku socdo gantaalkaasi ayaa aad u sareeya ayaa uu yiri Howard, balse waxaa la soo saari doonaa macluumaad maalinle ah oo la xiriira halka uu soo marayo gantaalkaasi. haddaba maxaa dhacaya haddii gantaalkaasi uu dhulka soo gaaro? gantaalkan oo cabirkiisu uu yahay 30 mitir ayaa haatan dunida ku dul wareegaya 90 daqiiqo oo kasta xawaarahaasi oo aad u sareeya, taas oo keentay in khubarada cirbixiyeenada ay ku adkaato inay shaaciyaan halka saxda ah ee uu ku dhacayo. waxaa la sheegayaa in waxyaabaha xaaladan sii adkeynaya ee ay dunida ka walwalsan tahay ay tahay in Shiinuhu uusan dunida inteeda kale la wadaagin macluumaad ku filan oo la xiriira gantaalkaasi. haddii gantaalkan uu ku soo dhaco dhulka gaar ahaan goob ay dad badan ay ku nool yihiin, natiijadu waxa ay noqonaysaa sida diyaarad yar oo soo dhacday oo weliba hawada ku soo burburtay. waxaana sidaasi sheegay Jonathan oo ka howlgala xarunta jaamacadda Harvard oo la hadlay warbaahinta qaar. nasiib wanaag sidaasi darteed khasaaraha dadka, dhismooyinka ama deegaanka soo gaara aad buu u yaraan doonaa. boqolkiiba 75 dhulka waa biyo, waxaana intaasi sii dheer in meelo badan oo dhulka ka mid ah aysan dad joogin. sidaasi darteed khatarta dadka ka soo gaari karta aad ayuu u yaryahay gantaalkaasi. gantaal cabirkiisa lagu sheegay 18 tan ayaa bishii May ee sanadkii la soo dhaafay soo dhacay, kaas oo la sheegay in uu ahaa gantaalkii ugu cuslaa tan iyo gantaalkii ka soo lumay hawada sare ee Midowgii Sofiyeed sanadkii 1991. 2006 gantaalkii loogu talagalay xaruntii hawada sare ee ugu horeysay ee Shiinaha waxa uu ku burburay oo uu ku dhacay badda Basifikada kadib markii xukuumadda Beijing ay xaqiijisay in xakameyntii ay ka luntay. bishii Maarso gantaal lagu magacaabo Falcon 9 oo uu Mareykanka hawada u diray ayaa ku soo dhacay dhulka gaar ahaan Washington iyo xeebta Oregon.